اللهم بارك لي في أولادي وألف بين قلوبهم ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم وارزقهم بر أولادهم. اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha quruxda badan ee ku xiran janalkeena qurux dumar janal soo dhawaada walaalayaal gacmo furan iyo niyad saafi ah kusoo dhawaada rutiinkeena saaka ama rutiinkeena subaxlaha ah. maasha Allah waxay noogu bilaabanaysaa canjeero dubow. marka soo dhawaada walaalaha quruxda badan maasha Allah canjeeradeena saas ugu soo shubaneynaa kushubka gedi waa maasha Allah alxamdulillah. soo dhawaada walaalaha quruxda badan janaalka hadaa ku cusub tahay hadaa ismartiyeen soo dhawow subscribe ka saaro gambaleelka on ka dhigo hadaa hore noola joogto waa mahadsan tahay. muuqaalkan like ta saara like ka iloobina waa routine waa dhiirigelin maasha Allah gabdhaha ayuu dhiirigelin u yahay. canjeeradeena waa adkaasaa walaalaha qaaliga ah waa ka qaadanay hadana mid kale kushubka gedi waa maasha Allah alxamdulillah. xala ayaan qasay canjeerada marka cajiin ayaan ku qastay walaalaha quruxda badan qaabkaas ay u socotaa xoogoo hadda birta iga kulul marka waa yar qaboojiyay alxamdulillah. rutiinkeeni maalinlaha ahaa yaa canjeeradeena ayaa kusoo bilaabanay waxyaalihii inoogu xigay intaba waa arki doontiin. canjeerada markaa kasoo dhamaad maasha Allah waa kaas qaabkaas quruxda badan yaa ayaa noogu soo idlaatay. hadaba canjeero dubowgi markaan kasoo baxay miiska ayaa u imaaday miiska la hagaajinaa insha Allah. maanta waxa la hagaajinaa qolka fadhiga miiska ka bilaabay busbus iyo haduu wasaqliha ka hagaajinaa walaalaha quruxda badan insha Allah. waa tirtirayaa gees ilaa gees miiska markaa bugo oo aan soo taagay insha Allah. shaqooyinka inoo xigay ee maanta qabanay waa isla arki doonaa isla daawan doonaa. kuraastaas ayagana bus xoogan ayaa jirta marka insha Allah BEO ma ayaa kusoo tirtirayaa iyagana yaa kor ilaa iyo hoos waa la nadiifinayaa maxaa yeelay bus badan ayaa jirto oo wax dhan way busoo waayaan. marka walaalaha quruxda badan kor kursigiisaas ayaa uga soo tirtiray hoos lugaha kulli waa la soo tirtirayaa ilaa iyo gadaal maasha Allah. dhalla ayaa laga soo dhigayaa walaalaha quruxda badan. rutiinkeeni maanta dhiirigelinteena maanta qaabkaas ayuu noogu socdaa. markaasoo quraacdeena kasoo bogan alxamdulillah miiska soo hagaajiyay kuraastaas u imaaday yaa dhala iyo nuur ayaa laga dhigayaa iyagana walaalaha quruxda badan soo dhawaada. muuqaalkan laagtiisa heesana qaybta hoose commentiga fikirkiina ra'yigiina igu soo dhiibta. marka walaalaha quruxda badan insha Allah kursigii koowaad waa bogay kii labaad hadana ay nadiifinayaa kor ilaa iyo hoos waa laga tirtirayaa waa laga nadiifinayaa insha Allah. walaalaha quruxda badan yaa waa la bus qaadayaa marka insha Allah. walaalaha quruxda badan muuqaalkeeni rutiinkeeni dhiirigelinteeni morning rutiinkeeni subaxlaha ahaa maanta qaabkaas ayuu inoogu socdaa. hadda waa gadiyay dhinacii gadaale ayaan hadda tirtirayaa bustaa laga qaada lugaha meel la dhaafaa male maasha Allah. isaga dhan waxaa la rabaa in la nuuriyo ma fahanteen walaalaha quruxda badan. marka kuraas soo bogno shaqooyinka noogu xigo waa isla arki doonaa insha Allah. janaalkiina waaye soo dhawaada gabdhaha dhiirigeliya markasta waa mahadsantihiin walaalahayga quruxda badan yaa mahad celintiina mid la koobi kara ma aha. kuraasti markaan soo bogay waxaa u imaaday fadhiga la jafayaa laftigiisa bus uu leeyahay maxaa yeelay busta meel kasta way saameynaysaa. marka qol inta la hagaajin horta fadhiga in la iska jafo oo busta sheegay laga soo dejiyo waaye. marka fadhigayaan soo jafayaa hadda la soo nadiifinayaa. fadhigi markaa jafay roogi iyo sijaayad wax ku jira qolka waa iska bixiyay maasha Allah. iskuubihayga hadda soo qaatay qolka waa la xaaqaba ujeedin walaalaha quruxda badan maasha Allah. qaabkaas ayaan u xaaqayaa hadda dhul xaaqo iyo dhul tirtiro muhiimada ma aha muhiimada waa dhiirigelinta yaa baayo jiifka ka kac shaqeeyo gurigaaga wax ka qabso waaye sheekada meeshaas ay maray maasha Allah. walaalaha quruxda badan qolkeeni saas ayaan u xaaqayaa hadda quraasya meeshaas taalo waa kale leexinayaa waa la xaaqayaa qolka dhan insha Allah. markaas soo xaaqo oo qolkii soo nadiifiyo yaa hadda qashinka ka bixi ku xigay qabalay maahino marka walaalaha quruxda badan soo dhawaada rutiinkeeni dhiirigelinteeni maanta qaabkaas quruxda badan ay noogu socdaa. miiska hoostiisa xaaq luuq walba gal maasha Allah meel laga tagin waa sheekada. marka waa kaas walaalaha quruxda badan qolkeena fadhiisaas ay soo xaaqanayna roogi iyo wixii ku jira qolka waa ka bixiyay yaa maasha Allah banaanka ariga waa hurgufay idan qolka marka iska taago
oo aan xaaqo oo tirtir oo qolka nadiifiyo ayaa dhow kusoo xareynaa insha Allah. qaabka usoo baxayna waa arki doontiin walaalaha quruxda badan soo dhawaadahay mar labaad iyo mar saddexaad ba janalkiina waaye soo dhawaada walaalaha quruxda badan ismartiyeenna janalkan waa janalkiini xaqoogeena hadda waa noo gabagabo albaabka agtiisa la maraa insha Allah. qashinkaas isku soo kuusaya qashinka marka isku soo kuusadan yaa qashin qaadkaas ku xaabinaya walaalaha quruxda badan soo dhawaada. qashinka marka iska xaabiyo waxyaalihi noogu xiga waa arkeysiin qolkeena saa u naqshadeena soo noogu soo baxaya intaba insha Allah waa arki doontiin walaalaha qaaliga ah. hadda meesha iridaan geeyay qashinkii kabaha iyo jaajarka waxa ku jira ka bixinaya oo loo baahan yahay dan wixii qashin ahna qashinkaas laga dari doonaa walaalaha quruxda badan. marka soo dhawaada hadda waa kaas ishiinaydeen macalina wax laga sheegay mar waa aragtaan soo dhawaada walaalaha quruxda badan. bacdaas ahab soo siistay yaa wixii qashin ku guro waaye bacya horta maadaama ay buubaan gacmaha ku qaaday wixii carcara in qashin qaadkaas ma sha Allah ku soo xaabinaya dan bacda la soo geenaya walaalaha quruxda badan. rutiinkeeni maanta rutiinkeeni subax laha ma sha Allah qaabkaas ayuu socdaa qolkeena hadda waa soo xaaqnay qashinkan bacda isagalid banaanka iska geelay waa ma fahanteen. marka ma sha Allah marka qolka soo xaaqay u taagay iyo shubya tirtiraha iyo soo qaad waay. marka walaalaha quruxda badan biyihiya soo qaaday hadda qolka fadhiga keenay qoomada ku tirtir lahaaya ku shubooya tirtiraha soo qabo ma sha Allah. qolka dhala iyo nuur ka dhiglay waa sheekada walaalaha quruxda badan. rutiinkeena maanta amoon rutiinkeena ma sha Allah qaabkaas ayuu noo socdaa bilowgi waa la joogta ilaa ay hadda waa la joogtaa waa mahadsan tahay. kaliya waxa ka dhiman muuqaalka inaad like saarto hadii ay loodi hadii aan noo saartayna waad mahadsan tahay walaal qaali. tirtiraheeni ayaan hadda qolka ku bilownay qaabkaas quruxda badan ayaan u tirtirayaa walaalaha quruxda badan soo dhawaadahay. hadda janalkan waa janalkiini ah ku cimaamada like share ka asxaabta cusub soo dhawaada kulligiin waa mahadsantihiin mahad celintiina kama daalayo asxaabtayda waa familkayga. marka walaalaha quruxda badan ma sha Allah iskoobahaas loogu xoojinaa loogu tirtiraa meel kasto yaa kuraasta hoostooda marka leexi ka dhacday ma sha Allah tirtirkeeni maanta rutiinkeeni subaxlaha ahaa maanta qaabkaas quruxda badan ayuu noogu socdaa iyo shacnigaas walaalaha quruxda badan ma sha Allah waa aragtaan meel shii wax ku dhagan ku xooji ku tirtir si fiican nuur waa qolka bahalka wax ku tirtiray xataa meesha ku yaala waa iska riskiinaya walaalaha quruxda badan soo dhawaada ma sha Allah. rutiinkeeni maanta qaabkaas ayuu noogu socdaa qolka la tirtiro ma sha Allah qolka xoog qol weyn waaye. marka hadda irida geeskeedii marooya iyo miiska inta u dhaxeysay saasa loo soo tirtiraa walaalaha quruxda badan. rutiinkeeni maanta dhiirigelinteeni maanta qaabkaas ayuu noogu socdaa qolkeena markaa soo tirtiro insha Allah oo aan soo bugo oo wax yar uu soo angago waa soo habeenaya walaalaha quruxda badan. roogiisa iyo wixiisa la soo dhigaa insha Allah fiyogiisa ama qaabku ku soo baxo waa isla daawan doonaa. hadda walaalaha quruxda badan soo dhawaada janalkan marti kama tihiin waa janalkiini waa janalkii gabadhiini soo dhawaada. hadda waa dhownahay dhamaadka ayaa ku dhownahay albaabka agtiisa ayaa maray walaalaha quruxda badan waa soo dhameeyay hadda waa gabagabo waa albaabka qolkii ma sha Allah yaa wax yar oo ii angagaya markuu wax yar ii angago roogeygi iyo wixii aan soo dhiganay ma sha Allah walaalaha quruxda badan. qolka markuu angagay saas ayuu noogu soo baxay ma sha Allah nimca Ilaahay waaye waa mahadsantiin walaalaha qaaliga.